السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan iyo si walba aan noo maqlaysaan ku soo dhawaada wararka duurnimo ee Hegan Media qodobada aan idinkugu hayana waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Puntland oo dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka hor istaagtay dhismaha laba dekedood Puntland oo ku dhawaaqaysa natiijada baaritaanka dilkii Paul Antonio madaxii shirkadda DP World dagaal xalay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose caalamkana waxaan idinkugu hayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain oo maanta xilka la wareegaya wararkaas iyo warar kale oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anoo shuka aadan goray iminkana u diyaar garooba ayaga oo faahfaahsan wariyaha socdaalka ah shacabkiisu sugayaan aan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dene ayaa sheegay in Puntland ay dhowr jeer dowladda Soomaaliya ka codsatay in ay ka caawiyaan mashaariic laga fulinayo dekedo ku yaala magaalooyinka Puntland waxa uu sheegay in xukuumadda ka horeysay ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay qoraallo u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin sidoo kalena ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu diiday in uu dhagax dhigo dekeda deegaanka Garaacad ee gobolka Mudug isagoo sii hadlayay ayuu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale diiday in ay aqoonsato qayb weyn ka qaadato maalgelin shirkadda DP World ay ku sameynaysa dekeda magaalada Boosaaso hadaladiisina waxa kamid ah dowladda federaalka Puntland haday caawinayso maxaa loo diiday waxaan rabaa inaan isdul taago dowladda Puntland waxay marar badan weli xukuumadda iga horeysa ka codsatay dowladda federaalka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha inay gacan ka siiso waxaa ka mid ah dhismaha dowladda iyo shacabka reer Puntland ay runtii u arkeen inuu istaraatiiji ah isugu tageen oo ah dekeda ka socota Garaacad oo dowladda Soomaaliya aan looga codsaday inay dhiirigeliso gacanna ka siiso qoraallo saboorti garaynaya loo qabto ra'iisul wasaaruhu wuxuu diiday inuu dhagax dhigo waxaa laga waayay qoraalladii sameynayay inay recognition ku hayso si maalgashiyaashu ay u dareemaan inay dowladda uga taageertaan waxay dowladda federaalku si cad u diiday dekeda Boosaaso oo ballaarin iyo mashruuc shirkadda DP World ay ka fulin lahayd inay siiso aqoonsi iyo inay ratification ku samayso maadaama ay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya aan xubinta ka ahayn haddana waxaa loo sii dheeraaday waxa ay New York Times qorayso oo iyadoo u baahan in dib loo eego marka arrintaasna waxaan rabaa inaan meel yar ka iftiimiyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dene ayaa tan iyo markii uu la wareegay talada maamulkaasi waxa aad u xumaa xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya isagoo oo toddobaad walba u jeediya madaxda dowladda federaalka ee dan kala duwan dowlad goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay kaga hadleen in baaritaan dhab ah lagu sameeyo warbixin wargeyska New York Times ee dowladda Qatar lagu eedeeyay in ay ka dambeysay qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso iyo in ay Puntland soo bandhigayso baaritaan lagu sameeyay dilkii madaxii shirkadda DP World Paul Antonio war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayaa marka hore loogu dalbaday golayaasha xerdejinta iyo fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliya in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan eedaynta loo jeediyay dowladda Qatar ee ku lug lahaanshaha qaraxii ka dhacay 11 May sanadkani banaanka hore ee maxkamadda darajada koobaad ee magaalada Boosaaso sidoo kale Puntland ayaa waxa ay ballan qaaday in ay gacan weyn ka geysan doonto baaritaanka ku saabsan eedaynta ka dhanka ah dowladda Qatar ee lagu daabacay wargeyska New York Times isla markaana kaalin weyn ka qaadan doonaan gabagabadii Puntland ayaa dhinaca kale sheegtay in dhawaan ay ku dhawaaqi doonto natiijada ka soo baxda baaritaan ay ku wadaan weerarkii ka dhacay magaalada Boosaaso si gaar ah dilkii 4 bishan Febraayo ee sanadkani loo geystay madaxii shirkadda DP World Paul Antonio
wararka laga helayo gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in saldhigga la weeraray lagu tababarayay ciidamo ka mid noqon doona kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada ilaalada ka hayay xarunta iyo xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab ee weerarka qaaday ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ka soo gaaray dagaalkaasi waxaana dadka tuulada Ceel Jaalle ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaas la isku adeegsanayo hase yeeshee aysan cadayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama xilli habeen ay ahayd dhinaca kale dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Ceel Saalin oo u dhow deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii ay xalay Al-Shabaab weerareen saldhigga ciidamada dawladda ee deegaankaasi goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo Al-Shabaab isla markaana ay xalay dareemeen cabsi badan maadaama dushooda lagu dul dagaalamayay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in uu xalay ka dhashay dagaalkaasi hase yeeshee aan si rasmi loo ogeyn waxaana ilaa iyo hadda dagaaladii xalay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose deegaano ka tirsan aan ka hadlin saraakiisha ciidamada dawladda iyo xarakada Al-Shabaab xisbiga Conservative-ka ayaa talada shalay u doortay Boris Johnson in uu noqdo hogaamiyaha xisbiga kaasoo bedeli doona Theresa May arrintaani ayaa wadada u sii xaaraysa inuu Arbacada maanta uu martiqaad ka helo boqortooyada si loogu magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain ninkan oo horey u ahaa saxafi hore marna soo noqday duqii magaalada London ayaa noloshiisa dhamaanteed ku taamayay xilkan uu hadda qabtay hase yeeshee ay shaqo aad u adag hortaalo falaaga xisbiga kula jirto uu hormuud u yahay mudanaha lagu magacaabo Philip Hammond ayaa isagu cadeeyay in hadii uu isku dayo in Britain heshiis la'aan kaga saaro midowga Yurub uu codkooda ku biirin doono xisbiga mucaaradka ah si ay xukuumaddiisa u ridaan arrintaas oo keenaysa doorasho xilligeedii ka soo hormaraysa taas oo ay adag tahay in xisbiga Conservative-ku uu ku guuleysan doono qodobadaas ayaa ugu waaweynaa dhageystayaal qodobadii aan dalka iyo dabadaba aan idinkaga hayay waad ku mahadsantihiin dhageysigiina hadii aad doonayso wararkan iyo warar kaleba mar walba inaad hesho channelkan Hagen Media subscribe saar gambaleelkana furo sidoo kale la wadaag asxaabtaada waa Shiko Aadan Guray oo idin leh tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo.